Xaruntan ayaa ah mid lagu daweeyo cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha waxaana laga hirgeliyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Goobtan caafimaad ayaa lagu magacaabaa Dr. Amina Baxsan Dental Specialist Clinic waxaana kugu diyaarsan goobta qalab aad u casri ah oo la jaan qaadaya dalalka caalamka iyo dhaqaatiir arrintani aad ugu xeel dheer cudurrada ay daweynayaan. Xaruntan ayaa waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah abuuridda ilkaha haddii uu cirridku caafimaad qabay iyo kuwo kale oo aad u badan. Waatan Dr. Amina Baxsan oo ah ditoreysada xaruntan aasaastay. Waxay inooga waramaysaa waxyaabaha ay qabtaan oo ay bulshada ka xaqabtiraan. Magacayga waa Dr. Amina Xasan Sheekh Xasan oo ka howlgasho clinic Dr. Amina Baxsan Dental Specialist Clinic. Clinicu waxyaabo badan ayuu qabtaa. waxaa ka mid ah treatmentiga dentalka oo dhan oo wada jira oo ugu horeyso ka hortaga ilmaha yar yarka in laga hortago cudurrada ilkaha ku dhaco looga hortago. waxaa ka mid ah buuxintii gelintii iyo iligii oo markaas rajadiisu ay aad u yar tahay in rajo loo yeelo oo la soo kabo ilig fiican oo toosna oo lagu shaqeyn karo laga dhigo oo wax lagu cuni karo oo aesthetic leh oo qurux badan. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan qabaneyno ilka toosinta in ilkaha lakabka laga bixiyo oo ilka toosan oo siman oo qurux badan laga dhigo. waxyaabaha aan uga duwanahay meelaha kale waxaa ka mid ah standardka aan ku shaqeyno waa standard caalami ah qalab casri ah. waxaa kaloo keenay qalab noo suurta gelinayo in iligii ayadoo aan la siibin meeshiisa lagu daaweeyo neerfaha looga dilo oona la abuuro. mid kale oo aan uga duwanaa waxaa ka mid ah abuuritaankii iligiyo qofkii oo ilka la'aan ah in ilka loo abuuro oo hadda adeegyada cusub oo aan ku soo kordhinayno cliniga kamid ah. dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa cliniga Dr. Amina Baxsan Dental Specialist Clinic. aad u mahadsantihiin. Xaruntan Dr. Amina Baxsan Dental Specialist Clinic waxay xarumaha kale kaga duwan tahay waxa yaala qalab casri ah oo la jaan qaadaya dunida. sidoo kale waxa laga xalinayaa iyadoo aan laga bixin gooskii ku xanuunayay in laga daweeyo isla markaana uu xanuunka ka joojiyo. sidoo kale waxa xal loo keenay isla markaana laga daweynayaa cudurka ku dhaca ama loo yaqaan afshiirka kaasoo ciridka dhiigga ka imaanaya laga daweynayo si aad bulshada ula jaan qaadid isla markaana aad u dhax gasho. Safiya Ismaan Cabdulla 5TV magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.